صعب 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 بدها لوقتو صعب 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 بدها لوقتو بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعنا وناكسن كل هبون إلى أنتم waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka faaqidaada cayaaraha waxaana kala ka maqashaan idaacadda Isnaay ee magaalada Jowhar barbaartii la soo xumay tartan loogu baaqay bulshada xiriirka يا ابو سركع صعب 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 بدها مغرب البعضان oo kale ee barnaamijka ka dhageystaan idaacadda maqribnimadan qodobada aad maqli doontaan waxa kamid noqonaya laba kooxood oo Premier League oo ku dagaalamaya saxiixa Thiago Silva oo la shaaciyay Mbembe oo loogu baaqay inuu ka tago PSG si dunida ay u barato Real Madrid oo 10 u dhigtay kooxda Aiba saddex xidig oo shabaqa gaaray iyo hogaankii La Liga ee Barca oo laba dhibcood lagu soo yareeyay xidigii garoonka labadii laacib ee Cubabay qiimeynta ciyaartoyda kulankii Real Madrid ee Aiba barnaamijka ayaan ku qaada dhigi doona agaraad maqli doontaan taariikh uu Sergio Ramos sameeyay waxa uu barbareeyay rikoorkii Ronald Koeman kadib goolkii Aiba uu ka dhaliyay Greeneville oo ka cabsi qabay in Man City Liverpool ay ku qasabtay inay sameyso qaladkii Manchester United oo kale Ayn Raid oo fariin u diray Bukayo Saka kadib markii lala barbardhigay xidigaasi Ashley Cole Mikel Arteta oo loo sheegay sida ugu fudud ee uu ku garaaci karo Man City kulanka Arbacada ee soo socda dhaawacii Carvalho soo gaaray jug cusub oo soo gaadhay Eden Hazard iyo dhacdooyinkii xalay kulankii Real Madrid ay Bazdan oo ka hadlay kulankaasi barnaamijka ayaan kula faguri doona Sanjana waxa dadka u dhow sheegay inuu diyaar u yahay inuu ku laabto Manchester City isagoo shardi ku xiray wararka dhinaca daaqada warkiisa waxyaabaha ay qoreen ciyaari rikoorada laga diiwaan geliyay ciyaaraha la ciyaari doono dhammaan barnaamijka ayaan ku faaqidi doona soo saaridda la socodsiin doona bisana farsamada engineer macluum ku soo dhawaada markana barnaamijka faaqida cayaaraha شبك صدا وهلا بلا ساري وبري لا لما بشا عالم كله نقدك شبك صدا وهلا بلا ساري markale maqrib wanaagsan ayna wada idin kale nahay falanqeynta barnaamijka ayaan gudagaleynaa waa 15 bisha 6 ee June sanada 2020 maqrib isniina aynu ku bilownaa tababaraha Tottenham Jose Mourinho ayaa la sheegay inuu danaynayo inuu naadigiisa keeno daafaca reer Brazil Thiago Silva oo bisha August ka tagaya Paris Saint-Germain oo ka tirsan yahay kadib muddo 8 sanadood ahayd oo ka ciyaaray kooxdaasi daafacan ayaa ka tagi doona Parc des Princes Stadium marka uu dhamaado heshiiskiisa waxaana xiiseynaya kooxo badan oo Premier League oo ay ku jiraan Arsenal iyo Everton laakiin Jose Mourinho ayaa dardar la yimid oo u muuqda inuu gacanta ku dhigi doono laacibkan sida uu qoray wargeyska The Sun Mourinho ayaa doonaya inuu 35 jirkan keeno magaalada London oo xilli ciyaareedka soo socda ka ciyaaro Tottenham Hotspur Stadium Asboriska ayaa u baahan inay daafacooda xoojiyaan xilli ciyaareedka soo aadan iyadoo uu ka tagi doono Jan Vatican oo uu qandaraaskiisu dhamaaday waxuu macalinka reer Portugal u sii ishaaqday 35 jirkan khibrada badan ee ka hor inta aanu tagin Paris waqti wanaagsan ku qaatay AC Milan sida uu cadeeyay agaasimaha ciyaaraha PSG Leonardo Thiago Silva ayaa la siin doonin heshiis cusub waxaana uu kaliya la joogi doonaa kooxda inta ka harsan xilli ciyaareedka tartanka Champions League inta kaga dhimanayana uu la dhameystiri doono oo bilaabanaya bisha August 35 jirkan oo 8 sanadood uu joogay Paris Saint-Germain kula guuleysay 22 koob waxa bixitaanka ku helin doona weerarka reer Uruguay Edison Cavani marka laga yimaado Tottenham oo Mourinho uu doonayo inuu si shakhsi ah ula xiriiro isla markaana uu ku qanciyo Silva inuu yimaado Hotspur waxa uu hirdan adag markaasi kala kulmi doona Everton uu hogaaminayo Carleto oo hore tababaro ugu noqday xidigan haddana doonayo inuu ka garab ciyaarsiiyo Michael Keane iyo Yerry Mina koox badan oo England ayana danaynaya xidigaas geesagale rugcadaaga qadka dhexe uga ciyaara Real Madrid Luka Modric ayaa u soo jeeday daayarka reer France Mbembe inuu isaga tago kooxda Paris Saint-Germain si dunida oo dhan uu qabsan karo Mbembe oo dalkiisa ka caawiyo inuu ku guuleysto koobkii adduunka 2018 waxaa si joogto ah loola xiriirinayaa kooxaha ay ka mid tahay Real Madrid oo qorsheedu yahay in iibsiga ay markaasi ka shaqeyso xagaaga dambe waqtigaas oo qandaraaskiisa
20 jirkan uu kula jiro baaqi Saint-Germain ay ka arsanaan doonto hal sano. PSG ayaa waqtigaas ku qasbanaan doonta inay iibiso xidigeedan amaba ay markaasi halis ku gasho inuu si bilaash kaga tago June 22 marka la gaaro waa sanada 2022 hadda inta ka horeysa aanu ka saxiixan heshiis cusub. Laakiin agaasimo Leonardo ayaa meesha ka saaray wararka sheegaya inuu daayirkan ka tagay kooxdaasi. Halbowlaha qadka dhexe uga ciyaara Croatia iyo Madrid Luka Modric ayaa rumaysan in awoodda ciyaareed ee ku jirta Kylian Mbappe ay gaari doonto fikta ugu sareysa, waxaase uu muujiyay shaki ah in aanu hamigiisa shakhsiyadeed ku gaari karin haddii uu sii joogo liigwanka. waraysi uu siiyay wargeyska La Gazzetta dello Sport ayuu Modric ku yiri Mbappe wuxuu leeyahay wax kasta oo uu ku maamuli karayo dunida, laakiin waxay la tahay inuu u baahan doono ama u baahan yahayba inuu tago koox leh tayadii ay ku qaadi lahayd Champions League oo aanay kooxdiisu si fudud markaasi ku heli karin. Modric oo sanadkii 2018 ku guuleystay abaalmarinta Ballon d'Or waxa uu bisha September noqonaya 35 jir, laakiin waxay u muuqataa in taasi ay tahay tiro kaliya oo ay weli xirfadiisu sareyso isagoo 35 jir ah. 30 kulan ayuu u saftay xilli ciyaareedkan socda Real Madrid waxaanu dhaliyay 5 gool iyo 5 caawimaad oo markaas sameeyay. Real Madrid waxay 10 u dhigtay kooxda Eibar iyadoo 3 xidig oo kala duwan ay shabaqa soo taabteen hogaanka La Liga oo Barca ay haysay ayaana 2 dhibcood lagu soo yareeyay. Real Madrid ayaa guul muhiim ah dib ugu bilaabatay horyaalka La Liga oo 3 bilood kadib markaasi dib loo bilaabay. 3 bilood oo hakad ay ku jireen ciyaaraha Los Blancos guushan ku hogaamiyay Toni Kroos, Sergio Ramos iyo Marcelo min hal gool wada dhaliyay. Dhamaan goolasha Madrid ka waxay ahaayeen kuwa la dhaliyay qaybtii hore ee ciyaarta, balse qaybtii labaad ee kulankan waxay Eibar samaysay isbedel weyn iyadoo gool la timid isla markaana fursado badan abuurtay. Guusha ay Real Madrid ka gaadhay Eibar waxay la micno tahay inay 2 dhibcood ku soo celisay hogaankii 5 dhibcood ah oo ay Barcelona habeenkii sii horeeyay ku qabatay La Liga. 3 bilood kadib Real Madrid ayaa markii ugu horeysay ciyaartay kulan La Liga waxaana ay soo dhaweysay kooxda Eibar iyagoo hamiga Los Blancos u ahaa inay jawaab culus u dirto Barcelona oo 5 dhibcood ku siisay hogaanka La Liga kadib guushii ay ka gaadheen Real Mallorca. Real Madrid ayaa waqti badan aanan sugin goolkeeda furitaanka waxaana markiiba ay ciyaartu socotay 182 ilbiriqsi gool cajiib u dhaliyay Toni Kroos. goolkani uu noqday mid si niyad leh ay markaasi ciyaartooyda Madrid markaa ugu dabaaldegaan halka uu dhulka la galay kooxda martida ahayd ee Eibar. haddii Arturo Vidal oo Barcelona ka tirsanaa uu Real Mallorca goolka furitaanka ka dhaliyay 65 ilbiriqsi ciyaarta oo socotay, Toni Kroos ayaa markiisa jamaahiirta Madrid siiyay fursad ay isla bilowgii ciyaartaba guryooda ugu dabaaldegeen. qaybtii hore ciyaarta ayaa ahayd mid natiijo aan markaasi hal dhinac ka socotay u muuqatay, isla markaana ay kooxda Eibar garan weydeen waxay samayso kubadihii badnaa ee mararka badan si fiican ay isugu dhiibi jireen ayaana la waayay. daqiiqadii 15aad kooxda Eibar ayaa ku dooday in ay heshay gool kulaad kadib markii uu kiika cadaadis kala kulmay Carvajal, laakiin garsooraha kulankan oo ah Fernandes ayaan waxba tilmaamin, balse ciyaartooyda Eibar ayaa ku sii andacooday in ay markaasi helaan koorne oo aan la siin. daqiiqadii 30aad Real Madrid ayaa heshay goolkeeda labaad ee kalsoonida badan siiyay ciyaartooydeeda waxaana waa gool qaab kooxeed wanaagsan ay u dhiseen. Sergio Ramos ayaa ka soo bilaabay dhinaca weerarka isla markaana uu ku dhameystiray kadib markii uu la ciyaaray Benzema kaas oo isna Eden Hazard la ciyaaray kubaddana u bixiyay, laakiin Hazard ayaan waxa isnimo muujin wuxuuna kubadda uu dhalin karay siiyay Sergio Ramos oo boos fiican waqtigaas taagnaa. natiijada ciyaarta ayaa ku soo cuslaatay kooxda martida ahayd ee Eibar waxaana Madrid ay hogaan ku qabatay 2-1, laakiin Los Blancos ayaa bilowday in ay raadiso qaabkii ay ciyaarta hurdo ugu diri lahayd. Eden Hazard oo markii hore ku soo bilowday dhinaca bidix ee weerarka ayaa u muuqday mid aan wanaag badan ku dareemin wuxuuna booska ka bedeshay daayarka Rodrigo. wuxuu Hazard markiiba garabka midig u wareegay oo helay fursado badan oo intii qaybtii hore ka badan. daqiiqadii 37aad ee ciyaarta Eden Hazard ayaa u muuqday mid gool soo laabashadiisa ku calaamadeeyay kadib markii uu kubad ka helay Karim Benzema isla markaana uu goolka Eibar kula soo baxay, laakiin goolhaye Dimitrov ayaa Eden Hazard ka beeniyay. Marcelo ayaa kubad aan la joojin karin ku soo celiyay taas oo shabaqu dhex dhigay.
markii uu Marcelo dhaliyay goolka saddexaad ee kooxdiisa waxa uu dhulka saaray jilibkiisa si uu taageero ugu muujiyo ninkii madowga ahaa ee dhowr toddobaad ka hor lagu dilay gudaha dalka Mareykanka kaas oo banaanbaxyo badan laga sameeyay George Floyd. ciyaarta ayaa noqotay 3-1 Real Madrid ay ku heshay goolka Aiba ay markaa ku sii niyad jabisay balse hamiga Madrid ayaa inta ka badnaa waxaanay doonayeen inay goolal badan dhaliyaan. kooxda Aiba waxa ku adkaatay inay jawaab bixiso inkastoo ay mararka qaar sameeyeen kubad isku dhiibasho fiican iyo weerar tag meel dhexe ku burburiyeen. qaybtii hore lagu kala 3-1 oo Madrid ay hoggaanka ciyaarta ku haysay. markii la isku soo laabtay qaybtii labaad ee ciyaarta ay Real Madrid u muuqatay inay soo laabteen iyaga oo si buuxda markaas isku dhigtay halka Aiba ay soo laabatay iyadoo danaynaysa inay goolasha iska soo kala yareyso ama Aiba iska soo aargudo. Zidane ayaa ciyaartoyda kooxdiisa soo raaciyay Mendy waxaana uu saaray Dani Carvajal oo dhaawac ah. 57 daqiiqo Aiba ayaa ku dhawaatay in ay goolkeeda koowaad hesho kadib markii ay markaasi Exposito uu kubad markaa ka farsameysay Morris isla markaana uu sameystay banaan uu darbo xoogan ku tuuray laakiin golaha Thibaut Courtois ayaa awooday in uu kubadda koorna isaga saaro. daqiiqadii 60aad Aiba ayaa birta u garaacday Real Madrid kadib markii uu Enrique u muuqday in uu gool dhaliyay laakiin birta ayaa ka beenisay goolka ay Aiba rajada ku abuuran gaadhay. daqiiqadii 60aad ayaa ugu dambeyn dadaalkeedii fursadaha qasaaray inta badan ahayd ay ka mid dhalisay kadib markii uu Pedro Picas awooday in uu golaha Courtois ku garaacay kubad uu daafac midig ee Real Madrid ka dhex qaatay waxaanu goolkan ahaa mid dhowrkii daqiiqo ee ugu dambeeyay soo muuqday. Zidane ayaa markiiba arkay in kooxdiisu ay kala daadsanaan ka muuqatay waxaanu ciyaarta soo geliyay saddexda xidig ee kala Bale, Vinicius, Gia iyo Militao. wuxuu saaray Hazard, Rodrigo iyo Ramos waxaana markan ciyaartu ay ahayd 3-1 oo Aiba ay gool ku soo heshay oo rajo soo geliyeen. daqiiqadii 7aad Marcelo ayaa musiibo ku noqon gaaray kooxda Madrid waxaana Aiba ay ku dhawaatay in soo laabashadeeda ay ku haminaysay ay ku dhawaato kadib markii uu Pedro Leon helay fursad uu goolka Courtois markaasi la hortagay. waxa uu gool ayaa ku qasbay in badbaadin xoogan uu sameeyo. Aiba ayaa fursado badan lumisay qaybtii labaad waxaana marar badan ay u muuqdeen kuwa ciyaarta xiiso u yeelaya laakiin dhamaystir xumo iyo nasiib darro ay mararka qaar la kulmeen ayaa Madrid ka caawisay inaynan xaaladdu ku xumaanin. ugu dambeyn ciyaarta ayaa ku idlaatay 3-1 oo ay Real Madrid ku garaacday kooxda Aiba waxay guushan Los Blancos ka caawisay in 2 dhibcood ay kusoo koobto hogaankii Barca ee habeen hore 5 dhibcood ay ku qabatay. loolanka La Liga ayaa isla toddobaadkan sii socon doona waxaana Real Madrid khamiista ay la ciyaari doonto kooxda Valencia halka Barcelona ay la ciyaari doonto kooxda Leganes. geeska kalena isla ciyaartan intaan ka bixin xidigii fashilmay iyo xidigii garoonka ayaanu ka hadlaynaa. hadaba Real Madrid guushan waxay kusoo gaabisay farqiga dhibcaha ee Barcelona ay kaga horeysay oo 2 dhibcood ay kusoo koobtay maadaama markii hore ay 5 dhibcood ku haysay. Zidane xalay waxa uu dib u helay laacibka reer Belgium Eden Hazard kaas oo ka soo laabtay ama ka soo kabtay dhaawac waxa uu la yimi bandhig fiican oo ay taageerayaal garoonka dhexdiisa ugu sacabatumo awood aan la qaban karin oo dhinaca bidix weerar kaga ahayd goolka Aiba iyo Eden Hazard ahaa. geesta kale waxa uu sidoo kale helay Marco Asensio oo xilli ciyaareedka inta ka harsanay dhaawac ku soo seegayay balse maadaama ciyaari laakiin haddana dib loo bilaabay uu soo kabtay inkastoo uu Zidane uu ka doorbiday in si qunyar ah uu siiyo waqti uu jirkiisa taam ugu noqdo. hadaba haddii aanu fiirno xidigii garoonka Toni Kroos ayaa loo doortay xidigii ugu fiicnaa garoonka waxaanu bilowgiiba dhaliyay gool qurux badan iyo kubadda oo markaasi kooxda uu ahaa laacibka qadka dhexe kubadda kala hagayay. xidigaha fashilmay ay markaasi ahaayeen shaxda tababar Zidane uu ku soo galay dhammaantood waxay muujiyeen ciyaar wanaag marka laga reebo Rafael Varane iyo Karim Benzema oo qiimeyntii ugu liidatay ka helay ciyaarta. labadan ciyaartoy ee Faransiiska ayaa bandhigoodu fashil ah waxaana qiimeynta ciyaartoydu ka heleen min 6 taas oo cadeynaysa in ciyaartoydu aanan heerkii laga filayay gaarsiisnayn. geesta kalena kabtanka kooxda Real Madrid Sergio Ramos ayaa barbariyay rikoor u yaalay daaficii hore ee kooxda Barcelona Ronald Koeman kadib markii uu gool dhaliyay
kooxda ayba ka dhaliyay kulankii xalay. Daafaca Sergio Ramos ee Real Madrid ayaa noqday daafaca goolasha ugu badan ka dhaliyay taariikhda horyaalka La Liga isagoo la goolal ahliyayga kooxda Barcelona Ronald Koeman. Kabtanka Los Blancos ayaa dhaliyay 67 gool oo 11 ka mid ay yihiin rigoore isagoo la mid ah Ronald Koeman oo Barcelona u dhaliyay 67 gool oo 46 ka mid ay rigooreyaal ahaayeen. Ramos ayaa dhaliyay goolkii labaad ee kooxdiisa daqiiqadii 30aad kadib markii uu isagu laftiisa weerarka ka soo qayb qaatay soona riixay kubadda ilaa iyo dhanka weerarka. geesta kalena dhinaca markaanu ka hadalno dhaawacyada, Zidane wuxuu xaqiijiyay in daafaca midig uga ciyaara Real Madrid Dani Carvajal uu dhaawac ka soo gaaray kuraanta qaybtii hore ee kulanka oo 3-1 ay ayba ku garbaasheen. waqti badan maysan isaga lumin Los Blancos daqiiqadii 37aad inta laga gaarayay ayna kaga filnaatay in 3 gool ay dhaliso. waqtiga nasashada waxaa la saaray Dani Carvajal oo dhaawacmay halka Eden Hazard ay soo gaadhay jug cabsi badan gelisay bilowgii ciyaartaba, laakiin uu ku sii ciyaari karay ilaa laga gaaray daqiiqadii 61aad markaas oo bedel lagu sameeyay. qaybtii hore way fiicneed oo waxay ahayd ciyaar lagu qanco, waxaanu helnay 3 dhibcood. waxay ahayd xaalad ay markaasi ku bedeleen sidii hore, waase inaanu la qabsano qaybtii dambe waxay nagu adkayd ciyaarta ayuu yiri. intaa kadib Zidane wuxuu ka hadlay dhaawaca Carvajal, jugtii gaadhay Hazard iyo bedelkii Ramos. waxay ahayd inaan bedel sameeyo, midkii ugu horeeyay wuxuu ahaa Carvajal, sababtuna waxay ahayd in uu markaasi ka ciiray kuraanta. Sergio Ramos uu yara caajisnaa iyo Eden Hazard oo aan muddo badan ciyaarin kulan. Hazard waxaa markaasi ku dhacday jug yar oo cabsi badan lahayd, laakiin kubadda cagta ay ka mid tahay jugta ayuu yiri. waqtiga nasashada ayuu ii sheegay inuu fiican yahay, waanu ku faraxsanaa. wax cabsi ah mayna haynin inkasta oo ay jugi soo gaadhay. tallaabo ayaanu markaa u isticmaali doonaa Marco Asensio, waanu fiican yahay. waxaa jiri doona ciyaaro badan oo ay tahay in uu diyaar garoobo, anigu waan markaa ku xisaabtamay ayuu yiri Zinedine Zidane mar uu ka hadlayay Marco Asensio sababtii uu soo gelin waayay. geesta kalena Gary Neville ayaa cabsi weyn ka qaba Man City inay Liverpool ku qasabto inay sameyso qalad ay Manchester United hore u sameysay. Neville ayaa sheegay in carada Man City iyo Pep Guardiola inay Liverpool ku garaaci karto horyaalka Premier League xilli ciyaareedka dambe, laakiin Gary Neville ayaa markaasi ka digay in kooxda Jurgen Klopp ay sii fiicnaan doonto marka ay markaasi helaan kalsoonida ku guuleysiga horyaalka Ingiriiska. City ayaa ku guuleystay horyaalka labadii sano ee u dambeysay, laakiin haatan waxay 25 dhibcood ka dambaysaa kooxda Liverpool xilli dib loo bilaabayo xilli ciyaareedka. Man City ayaa ku guuleysan karta 3 koob kadib markii ay horey u guuleystay League Cup, haatan ay weli u tartamayso Champions League iyo FA Cup. laakiin liiga Manchester United ayaa haatanba sii hadalaya tartanka Man City iyo Liverpool ku dhexmari doona xilli ciyaareedka dambe. Eintracht ayaa Bukayo Saka u sheegay booska ay u badan tahay in uu markaasi uga ciyaaro Arsenal mustaqbalka. daayarka lugta bidix ku ciyaaraya qaab ciyaareed cajiib soo bandhigay xilli ciyaareedkan iyadoo tababara Mikel Arteta ka ciyaarsiiyay xidiga garabka iyo daafaca bidix. Bukayo Saka ayaa qaab ciyaareed cajiib ku soo bandhigay daafaca bidix isaga oo caawiye ka noqday goolal kulamadii Newcastle iyo Everton bishii February. qaab ciyaareedkiisa cajiibka ah oo ku soo bandhigay daafac bidix ayaa keentay in la barbar dhigo Ashley Cole kaas oo ka soo baxay akademiyada Arsenal kana mid noqday hadigii ugu fiicnaa taariikhda booskaas ee Premier League. inkastoo Ashley Cole ka ciyaaray daafac weerar ah sida xidiga daayarka ee Bukayo Saka, haddana Eintracht ayaa rumaysan in daayarkan uu ka ciyaari doono garabka weerarka. aniga aan waa xidig garab ah ayuu Eintracht u sheegay Adench, sababta oo ah waxa uu leeyahay uu yiri awood uu uga ciyaari karo booskaasi. Ashley Cole waxa uu noqday xidigaha ugu fiican daafaca bidix taariikhda horyaalka England, laakiin Bukayo Saka waxa markaasi uu ku fiican yahay dhanka iyo weerarka England. geesta kalena tababar Mikel Arteta ayaa talo muhiim ah ka helay Eintracht ka hor ciyaarta ay Arbacada soo socota ka hortagi doonaan Man City oo ay ku booqan doonaan Etihad Stadium. horyaalka Premier League ayaa asbuucan dib u bilaabmaya, waxaana labada kulan ee ugu horeeya ay noqonayaan baaqiyadii haray ka hor intay aanu ciyaaruhu hakad la gelin.
Man City ayaa garoonka Etihad Stadium kusoo dhaweyn doonta Arsenal halka Aston Villa ay qaabilayso Sheffield United waxaana labada kooxood ba ahayeen kuwii hore markaa looga baajiyay finalka liigaabaha oo ay City iyo Villa wada dheeleen. kooxda tababara Arteta oo dhibaatooyin badan kusoo jirtay xilli ciyaareedkan ay yartahay fursadda ay markaa ugu soo gudbi karayso Champions League xilli ciyaareedkan iyaga oo 8 dhibcood ka dambeeya Chelsea oo kaalinta afraad ku jirta laakiin gool ay ka hesho Man City waxay keeni doontaa inay 5 dhibcood markaasi u soo jirsato. Eintracht ayaa talo muhiim ah ku kordhiyay Mikel Arteta ka hor ciyaartan waxaana uu sheegay inuu kalsooni ku qabo inay guuleysan doonaan oo ay 3 dhibcood ee ciyaartaasi heli doonaan balse waxa uu tilmaamay qaabka ay tahay inay u ciyaaraan. waxaa laga yaabaa inay ka faa'iideystaan garoon maran laakiin waxaynu markaasi ka hadlaynaa kooxda Man City oo ciyaartoy sare u haysata boos walba marka ay ciyaartoydu markaasi ku dheelayaan meel aanu jawigeedu cadaadis ku hayn oo ay taageerayaashu ka maqan yihiin way nasanayaan ayuu yiri. Arsenal waa inay halkaas tagto oo ay culays dhab ah saarto waa in ay Man City ogeysiiyaan ayuu yiri in xitaa iyadoo aanay taageerayaal joogin inay ku adkeynayaan ama ay ka adkaan karaanba haddii aad dib markaasi ugu fiirsato koox haysata ciyaartoy sida De Bruyne iyo Aguero waa lagu ciqaabi doonaa ayuu yiri halkaas marka la tago. geesigalna xidiga kooxda Borussia Dortmund ninka la yiraahdo Sancho ayaa albaabka u furay fikirka ku laabashada kooxda Man City laakiin hal shardi ayuu ku xiray arintaasi. Sancho ayaa horay markaasi ugu soo ciyaaray kooxda Man City gaar ahaan kooxda da'yarta intii u dhaxaysay 2015 ilaa 2017 laakiin wuxuu isaga ayaamay kooxda markii uu fursad ka waayay kooxda koobaad. Sancho ayaa bilii ugu dambeeyay si weyn loola xiriirinayay ku soo laabashada Premier League iyadoo loola xiriirinayay kooxaha Liverpool, Chelsea iyo Man United. wargeyska The Sun ayaa sheegay in Sancho dadka u dhow markaa u sheegay inuu diyaar u yahay inuu markale ku laabto kooxda Man City laakiin Sancho ayaa shardi ku xiray arintaasi shardigaas oo ah in Man City ay xiisad dhaba u muujiso helitaanka saxiixiisa marka la gaaro suuqa xagaaga. agaagul waxaad degeysanaysaan barnaamijka faaqidaada cayaaraha waxaa toos idinkaga imaanaya idaacadda Isnaa'i ee magaalada Jowhar 87.7 megahertz oo ku gadaaman Jowhar Shabeellaha Dhexe Soomaaliya. dhegeystayaasha meel walba caalamka joogaana waxay toos noogala socon karaan page-ka Facebook aan ku leenahay Isnaa'i Radio. markana wararka dhinaca daaqada iyo wargeysyada waxyaabo ay qoreen. Manchester United waxay dadaalkeeda oo dhameys ugu geyn doontaa sidii ay ula soo saxiixan lahayd xidiga qadka dhexe Aston Villa Grealish oo 24 jir England qiimihiisu yahay 75 milyan oo gani waxaana go'aankan qaadatay kadib markii Borussia Dortmund ay u sheegtay inay sugayaan 12 bilood oo kale haddii ay rabaan Sancho ayaa loo sheegay in uu door bidayo inuu dhaqaaqo kooxdiisa hore Man City haddii ay Man United bixin kari weydo 115 milyan oo gini oo Borussia Dortmund ay ku xidhay kooxaha doonaya saxiixiisa. Newcastle United waxay xiisanaysaa daafaca bidix Reis Marcos Alonso oo ka tirsan Chelsea 29 jirkan ayaan sugnayn mustaqbalkiisa Stamford kadib markii Blue la xiriiday Ben Chilwell oo 23 jir ah si ay markaa ugu bedeshaan. Chelsea waxay doonaysaa in 75 milyan ay ka gudbiso Kai Havertz oo Liverpool ka tirsan 22 jir qadka dhexe oo Liverpool iyadoo dhankeeda ay ku qiimeynayso 90 milyan. Manchester United waxay liiska ciyaartoyda ay doonayso ku darsan 23 jirka qadka dhexe uga ciyaara kooxda Leicester City ninka la yiraahdo Wilfred Ndidi laacibkan reer Nigeria iyo sidoo kale la xiriirnaa Real Madrid iyo baaqi Saint-Germain. Arsenal waa farxad la ka heshay laacibka qadka dhexe uga ciyaara ee Ghaneska Thomas Partey kadib markii ay soo baxday in Atletico Madrid ay aqbalayso in ay markaa u ogolaato inuu ka tago. Tottenham iyo Arsenal iyo Everton waxay ku tartamayaan saxiixa daafaca reer Brazil Thiago Silva iyo 30 jir ah kaasoo ka soo dhaqaaqaya baaqi Saint-Germain. ugu dambeyntiina Chelsea, West Ham iyo Tottenham waxay dhammaantood bixinayaan goolaha reer Spain ninka la yiraahdo Pau Lopez Roma oo uu ciyaaro ayaa la sheegay in ay markaa ku iibinayso 35 milyan oo gini. wararkii dhinaca daaqada ay ku saayeen gudaha inta ku saabsan barnaamijka faqraadda ciyaaraha oo toos idinkaga imaanaya idaacadda Isnaa'i magaalada Jowhar. tan kulan dambe amaana Allah.